haddii 10,000 xisaabiyaal ay jaamacadaha soo saaraan iyada oo 3,000 kaliya loo baahan uu wadanku ku soo kordhi karo culays kaga yimaada 7,000 kale oo shaqo la'aan ah. Restaurants, drugstores are at a record high. Demand for self-storage, even student housing. in mid ka mid ah fikradaha ugu muhiimsan ganacsiga in ay tahay isku dheelitirnaan. صح مرتبط قوي بالسوق، يمكن تكون سمعته قبل كده، العرض والطلب. Timantiga inuu supply-ga ka bato arrin fiican ayaa loo arkaa. How do you see this playing out in a similar way, or are we going to sort of wait until 2024 to see this recovery start to pick up? Halkani waa in baahi la abuuro ama khasaaro dhabarka loo rito. waxaa dood weligeed soo taagan ahayd in dadka aqoonta iyo xirfadda u leh shaqooyinka iyo shaqooyinka suuqa ka abuuran inaysan isku dheelitirneen. tusaale, siyaasiyiinta wadamada qaar waxay ku doodaan in shaqooyinka suuqa ka abuuran inay ka badan yihiin dadka xirfadda iyo aqoonta u leh in shaqooyinkaas ay qabtaan oo wadamadooda laga la'yahay dad xirfad iyo aqoon ku filan leh. dhinaca kale waxaa arrintaas ku raacsan shirkadaha, balse dadka ku nool dhulalka lagu yeero wadamada horumaray iyo kuwa kale lagu yeero wadamada soo kabcaya labadaba waxay ku doodeen inay jirto shaqo la'aan oo iyaguna ay leeyihiin xirfadaha iyo aqoonta u suurtagelinaysa inay shaqeeyaan. laakiin waxaa arrin marnaba laga muransan yahay ahayn in mid ka mid ah fikradaha ugu muhiimsan ganacsiga in ay tahay isku dheelitirnaan. waa wax loo yaqaano supply, af Soomaali ahna loo yaqaano bandhig ama helitaan ama bixin, iyo demand oo ah dalab mise baahi. المصطلح مرتبط قوي بالسوق، يمكن تكون سمعته قبل كده، العرض والطلب. But many people are waiting to purchase. The demand for bananas is higher than the supply of bananas. siyaabo badan ayay isku saameeyaan supply-ga iyo demandiga oo u baahan sharaxaad dheer, laakiin haddaan soo koobo sida ugu fiican ee loo maareyn karo waa in la isku ekaysiiyo. sidoo kale demandiga inuu supply-ga ka bato arrin fiican ayaa loo arkaa, waana marka uu ganacsaduhu ka faa'iidaysan karo suuqa. laakiin arrinta ugu adag waa marka supply-ga uu badan yahay demandigana uu yaraado. waqti badan ayay qaadataa sida loo fahmi lahaa waxa baahida yareeyay, iska baddaa waqtiga ay qaadan karto in xal loo helo. waxyaabo badan aan halkan ku soo koobi karin ayaa keeni kara in baahida ay yaraato. halkani waa in baahi la abuuro ama khasaaro dhabarka loo rito. weligaa haddaad maqashayn ama tviyada aad ka daawatay dhalinyaro shaqadoon ah oo ku kacsan nidaamyada wadankooda ka dhisan, waxaa la dhihi karaa supply oo ah dhalinyaro xirfad iyo aqoon leh ayaa waxay ka bateen baahida suuqa ama dimandi oo shaqooyinka abuuran ah. shaqo abuurista oo xalka ah haddii la waayana waxaa xigta badanaa kacdooyin shacbi oo isbedel doon ah. intaas aan soo sheegay kadib lagama samayn Soomaaliya cilmi baaris balaaran oo ku saabsan arrinta muhiimka ah ee xirfadaha iyo aqoonta ugu badan ay soo saaraan jaamacadaha ka jira Soomaaliya iyo baahida ugu badan suuqa ka jirta ee la xiriirta aqoonta iyo xirfadaha. wadamada lagu yeero dalalka horumaray waxay sameeyaan cilmi baarisyo arrintan la xiriira si ay u ogaadaan xirfadaha iyo aqoonta baahida badan oo suuqa qabo. halkaas ay ka soo bilaabaan dadaalka isku dheelitirka supply-ga iyo demandiga, maadaama wadanku si walba uu horumarsan yahay. tusaale, haddii 10,000 xisaabiyaal ay jaamacadaha soo saaraan iyada oo 3,000 kaliya loo baahan yahay uu wadanku ku soo kordhi kara culays kaga yimaada 7,000 kale oo shaqo la'aan ah. dhanka kale, iyadoo loo baahan yahay 10,000 haddii 3,000 la helana sidoo kale horumarka uu wadanku hiigsanaya ayaa hoos u dhici kara. arrintaas muran kama taagna, waxaase xusid mudan in la isku raacsaneen arrinta ah in qofka shahaadada iyo heerka cilmiga uu jaamacadaha ka gaaro kaliya ay sabab u tahay in shaqo uu helo ama hadduu helana uu ku guulaysto.